halkan uga mahad celinaya xildhibaanada golaha deegaanka bahda saxaafadda dhammaan inta waxaan ku salaamayna salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu run ahaantii kala fadhigu muddada soo dhejinay saxaafaddu waqtiga gidaarkii ku dhagsan tahay oo xogayuu soo dhejiyay xildhibaanaduna way ogaayeen wayna yimaadeen kala fadhigaasi wuu furan yahay wuuna socdaa iyo 10 xildhibaan saxiixay oo ku furnay ee miisaaniyadda ku ansixiyay wata adindiina ku aragtaan run ahaantii cidii barbogaadho kale ka shaqeynaysa dayada u taala aad baan u mahadsantii shirkuna uu socdaa ma dhamaanin maanta soo xidhmayna saxaafadda loo yeedhi doonaa waqtigii loogu tala galay inuu furmo taariikhdiisuna waa sida uu sheegay waa ka gidaarka ku dhagsan tahay waana arki kartaan wuuna socdaa wuuna socon doonaa danahana haday jiraan xildhibaano waxa weeye ka cabanaya oo waxa weeye cabasho qaba ama dareenkooda de waa qofku waa xor buu yahay inuu ka hadlo wuxuu ka hadlayo laakiin wixii danta guuda laga midaysan yahay baa laga midaysan yahay waana rajaynaynaa insha Allah taala in si fiican oo waxa weeye uu noogu soo gabagaboobo sidaasuna ku furmay sidaasuna u socdaa saasana oo ansixinay